bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedii afraxoo idinla socodsiinaya wararkii ugu dembeeyey arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad waddanka TV ku daawad doontaana waxaa ka mid ah TPLF oo hanjabaadii ugu adkeed soo saartay dagaalka waxa uu saameynayaa khaliijka geeska Afrika iyo Afrikaba hadiisan beesha caalam ku hadlin maba u baahnin hubka Jarmalka Sacuudiga oo ka xumaaday tallaabo ay qaaday Berlin ciidamada Abiy Ahmed oo magaalo kale oo muhiim ah ka qabsaday Tigreega dadka reer UK oo aad uga xumaaday arrin uu sameeyay ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo falcelin ay ku dhaqaaqeen Yurubna waa sii yaraanaysa Afrikana waa sii badanaysa Macron oo afka furtay kuna baaqay isbedelo dhaqaale caalami ah Mareykanka iyo Shiinaha oo uu farta ku fiiqay taangiye ay hore u qabsadeen TPLF oo qaar la burburiyay iyo meel ay ku shirayeen madaxdooda oo la duqeeyay iyo dawladda Ethiopia iyo maamulka TPLF oo wada hadalkii ugu horeeyay la qabanqaabinayo qodobadaasi qodobo kale ayaad waddanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17 November 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar waddanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore sida lagu sheegay war-saxaafeed ka soo baxay jabhadda TPLF ee ismaamulka Tigreega waxaa la cadeeyay in weeraradii shalay lagu qaaday xarumaha Tigreega loo isticmaalay hub casri ah oo aan Afrika oolin oo ay ku jiraan diyaaradaha iswada ee droniska oo duqeymo geystay iyo hub kale casri ah faahfaahinta lama bixin qasaaraha ay geysteen weeraradii shalay iyo gulufkii ugu cuslaa ee dhacay 24 saac la soo dhaafay ee lagu qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidanka TPLF iyo xubno ka tirsanaa maamulkaasi oo shir ku lahaa goobo u gaar ah bayaan ka soo baxay TPLF kuna taariikheysna shalay ayaa lagu dhaliilay hoggaanka Abiy Ahmed ee 2 sano jirsaday ee la wareegay talada dalkaasi Ethiopia waxaana lagu sheegay in deganaansho la'aan iyo qalalaase uu horseeday hoggaankiisa geesta kale bayaanka ayaa lagu soo qaaday in November 15keedii in weerar si xoogan u abaabulan oo loo isticmaalayo hub casri ah oo ay ku jiraan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyo teknolojiya kale oo qaarkood aan laga helinin qaaradda Afrika lagu soo weeraray shacabka Tigreega bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarka wadajirka ah ay soo qaadeen ciidamada amniga Ethiopia Eritrea ciidamada Amxaarada iyo waliba ciidamo kale oo aan Afrika ahayn TPLF waxay si adag u cambaareynaysaa weerarkaasi oo ay u aragto mid lagu gumaadayo shacabka laguna burburinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee Tigreega sida biyo-xireenka Tekese iyo waliba warshada sonkorta ee Woket ayaa lagu yiri warkan bayaankan oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Tigray oo u badnaa Catow waxaa lagu soo celceliyay in dagaalka oo ku lug leeyihiin xogaga Eritrea iyo kuwa aan Afrika ahayn TPLF waxa ay sheegtay in colaadda gobolkooda aan la mahdin doonin ayna saameyn ballaaran yeelan doonto xasilooni darana ka abuuri doonto geeska Afrika badda cas iyo khaliijka iyadoo khatar gelinaysa nabadgelyada iyo amniga caalamka waxa ay baaq u direen in arrinkan ay soo farageliyaan bulshada caalamka golaha ammaanka midowga Afrika midowga Yurub waxa ayna ka dalbadeen dhammaantood in ay cambaareeyaan maamulka sare ee dawladda deegaanka TPLF waxa ay ku cadeysay qoraalkeeda in weerarkan ay wadajir u soo qaadeen ciidamada Ethiopia iyo Eritrea waxa ayna sheegeen in lagu gumaadayo shacabka Tigreega agaag waata dhinaca kale tan Jarmalka oo xayiraad Sacuudiga ka saaray in ay iibsadaan hubka uu farsameeyo ayaa haatan mar kale ka fikiraya waxa laga yeelaya maadaama ay muddadii hore dhacayso 31 December ee soo aadan iyadoo ay dawladda wadaaga ah ee Angela Merkel ay soo rogtay Mars 2018 Sacuudiga ayaa go'aankan cambaariyay isagoo ku tilmaamay mid aan waaqici ahayn isla markaana qaldan isagoo hoosta ka xariiqay in Sacuudigu aanu u baahnayn iibsiga hubka Jarmalka waraysi uu siiyay DBA wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Abdel Al-Jubeiri ayaa hoosta ka xariiqay in sida ay yeelaan dalal badan ee reer Yurub ah ay qalad tahay in hubka laga iibinayo Sacuudiga loo joojiyo dagaalka Yemen dartiis sida uu hadalka u dhigay waxaan qabnaa inay qalad tahay maxaa yeelay dagaalka Yemen waa mid sharci ah waana dagaalna la ku qasbay
tahay ayuu ku dooday Al-Jubeiri. xayiraadda ka hor Germany waxa uu Sacuudigu ka iibiyey hub ku kacay 450 milyan oo euro oo u dhiganta 550 milyan oo dollar rubicii saddexaad ee 2017 oo qura sida uu faafiyey warqaadka Jarmalka ah ee Deutsche Welle. waxaan hubka ka iibsan karnaa dalal dhowr ah marka in la yiraahdo Sacuudi hubka ka iibin mayno wax farqi ah noo samayn mayso annaga ayuu ku falax goodiyey Al-Jubeiri walow uu sheegay in misna uusan dooninin inuu cadaadis saaro Jarmalka. agaag waata dhinaca kaleetana xukuumadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegtay in ay qaabsatay magaalo kale oo ku taalla waqooyiga gobolka Tigray kadib ku dhowaad 2 toddobaad oo dagaal uu ka socday gobolkaasi. warka ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay magaalada Alamata ka xoreeyeen kooxda Tigrayga xilli uu dhowaan sidan oo kale Abiy Ahmed u shaaciyey magaalo ay sheegeen in ay ka qabsadeen TPLF. Abiy Ahmed dhammaadka toddobaadkii hore sidan oo kale ayuu u sheegay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray iyagoo ka adkaaday ciidamada deegaanka uu ku eedeeyey xasuuq. inta badan ma jirto faahfaahin ay dowladda federaalka Itoobiya ka soo saarto guulaha ay ka sheegato dagaalka kala dhexeeya maamulka mayalka adag ee gobolka Tigrayga. sidoo kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay hogaamiyaha Tigrayga oo ku aadan sheegashada xukuumadda Abiy iyo dhacdooyinka ka dhacay Alamata oo u dhow xadka gobolka Amxaarada oo qiyaastii 120 kilomitir u jirta caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle. dagaalka Itoobiya ayaa waxa uu galaaftay nolosha boqolaal ruux iyadoo ay ugu yaraan 20,000 oo qaxooti ah ay uga qaxeen dalka Suudaan iyadoo oo maamulka Tigrayga uu ku eedeeyey in dagaalkaasi ay qayb ka tahay Eritrea taasoo taageeraysa ciidamada federaalka. hogaamiyaha kooxda TPLF Debretsion Gebremichael ayaa ku booriyey qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay cambaareeyaan falalka ciidamada federaalka Itoobiya isagoo ku eedeeyey inay adeegsadeen hub casri ah oo ay ku jiraan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska kuwaasoo uu sheegay in ay ku burburiyeen biyo xireen iyo weliba warshada sonkorta. Abiy Ahmed waxa uu dagaalkani ku qaadayaa shacabka Tigrayga isagana mas'uul ka ah ujeedada laga leeyahay ee ah dhibaatada dadka ee shacabka iyo burburka mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ayuu yidhi. waxa uu intaasi ku sii diray annagu ma nihin kuwii bilaabay khilaafkan waxaana muuqata in Abiy Ahmed uu dagaalkani u qaaday isku day uu ku xoojinayo awoodiisa shakhsiyadeed waana ka digaynaa in Itoobiya ay noqoto dal fashilmay oo kala qaybsan. si kastaba dagaalka xukuumadda Abiy Ahmed iyo maamulka Tigrayga ayaa ka sii daraya xilli ay socdaan dadaalo lagu rabo in labada dhinac la isugu keeno miiska wadahadalka si xal waara looga gaaro xiisada dagaalka ee ka dhex aloosan. agaag waata dhinaca kaleetana dadka UK ayaa aad uga carooday kadib markii lagu qasbanaaday in la karantiilo ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo isagoo oo aan maaskara xirnayn la kulmay saaxiibadiis oo qaar laga helay cudurka corona taasoo haatan siijinaysa wadaxaajoodyada muhiimka ah ee Brexit ee toddobaadkan lala gelaya midowga Yurub. wasiirka caafimaadka Matt Hancock ayaa Sky News u sheegay in xirashada maaskaruhu aanu qasab ka ahayn xarunta xukuumadda UK isagoo ku doodaya in goobo shaqo kasta ay leedahay xeer ayaga u gaara. ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa lagu haystaa in isaga oo aan maaskara gashnayn uu la kulmay mid ka mid ah xildhibaanada xisbigiisa oo ah Leanderson oo markii dambe laga helay cudurka corona taasoo haatan keentay inuu ra'iisul wasaaraha iskarantiilo waxaase arrintan baasiin ku shubay hadalka Hong Kong. dad badan oo British ah ayaa baraha bulshada uga jeexjeexaya madaxdooda iyagoo ka xanaaqsan laba arrimood oo ay mid tahay inuu ra'iisul wasaaraha sida uu ku sheegaya kulan muhiim u ah ayaha dadka Britishka ah ka wajahay mustaqbal aan kala cadayn kadib ka bixidoodii ee midowga Yurub iyo mid kale oo ah in ay madaxda ku dhaqmayaan xeer ka duwan midka ay wax ku dhaqayaan. waxa England iyo qaybaha kale ee UK haatan ka socda hashtag la yiraahdo one rule for them mid ka mid ah dadka isweydiiyey sababta aanay madaxdu tusaale u noqon karin marka ay wax hogaaminayaan. ra'iisul wasaaraha UK oo sidaasi uga maqnaanaya madlaha muhiimka ah ugu yaraan 2 toddobaad ayaa Twitterka ku sharaxay xaalkiisa isagoo sheegay inuu u caafimaad qabo
sidii ay kawaanle oo uu dalka ka maamuli doono zoomka. hagaag waa tahay dhinaca kaleetana madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dooday in loo baahan yahay in dib u eegis qoto dheer lagu sameeyo hanaanka dhaqan dhaqaale ee dunida maanta, isagoo taabtay isbeddelka tirada dadyowga oo u baahan tasiilaad cusub. Macron oo waraysi qoto dheer siiyey warbaahin maxalli ah waxa uu sheegay in hanaanka dib u habeynta dhaqaale ee Washington uu yahay mid haldhinacle ah oo faa'iido doon ah, isla markaana gaboobay, isagoo soo jeediyey in dunidu ay qorqoraysato nuuc cusub oo dhaqaale, siyaasadeed iyo bulsho si looga koro xasradaha dhaqaale, cudurro iyo weliba argagixisay haatan taagan. waxau kaloo sheegay in aragtiyaha Malthusian theories ee ku saabsan dadka sii kordhaya iyo sida tasiilaadka loogu qaybinayo ay iyaduna noqonayso haldhinacley haddii aan dib loo eegin tasiilaadka sii yaraanaya iyo weliba dadka sii badanaya, sida uu hadalka u dhigay. haddii aad eegto gobolka Yurub, Afrika, dal kasta oo Yurub ihi waa uu sii mirqaya, isla markaana waxaa soo kordhaya dalal Afrikaana. waa nuuc koror ah oo la mid ah kuwii dunida beddelay, ayuu yidhi. Macron ayaa ka dhawaajiyey arrin horey loo sii hadal hayay balse aan si rasmi ah looga maqal madlaha siyaasadeed ee galbeedka, taasoo ah in loo baahan yahay in dib u eegis iyo isbeddel lagu sameeyo hanaanka raasumaalka casriga ah. nidaamka hantigoosigu isaga uunbaa ismaalgeliya, balse wuu awoodi la'yahay inuu wax ka qabto cadaaladdarrada iyo isu dhignaan la'aanta dhaqaale ee maxalliga ah iyo midda caalamiga ah. marka aan wax ka qaba isniraahna isaga uunba sii xoojinaynaa, ayuu ku qayliyey. wuxuu Macron soo jeediyey in aragtida Washington lagu bedelo Paris, iyadoo ay tan dambe aqoonsan tahay in kaliya faa'iido uun laga fakirine loo baahan yahay go'aano bulsho iyo kuwa dhaqaale, isagoo sheegay in sida uun lagu xakamayn karo cimilada sii kululaanaysa, sinaan la'aanta fursadaha iyo faqriga. waxa uuna rajeeyey in aragtidan si caalamiyan ah loo qaadan doono. dhanka kaleeto, walo uu farta ku goday inuu weli rumaysan yahay aragtida Westphalian oo ah in uu dal kasta gayigiisa iyo iskiiba u madax bannaan yahay indhaha xeerka caalamiga hortii, in misna loo baahan yahay midnimo ka weyn oo ay la timaado Yurub si ay ula hardamaan saameynta laba dhinacleyda ah ee Shiinaha iyo Maraykanka. agagaata dhinaca kaleetana warbaahinta Ethiopia gaar ahaan telefishinka ku hadla afka dowladda ee ABC ayaa baahiyey sawirro ay ku sheegeen in ay yihiin hubkii ay xogaga TPLF ka qaateen taliskii ciidamada militariga gaar ahaan qaybta waqooyi ee Shiraro. waxay intaasi raaciyeen in hubka la qaatay oo ay ku jireen taangiyo culus ay qaarkood jidadka ay ku burburiyeen ciidanka militariga dowladda federaalka Ethiopia. taangiyada iyo gawaarida kale ee gaashaaman ayaa qaar sidaasi lagu burburiyey si aysan u adeegsan maleeshiyaadka TPLF, halka qaar kale iyaga oo badqaba dib loogu qabsaday, sida ay sheegayso warbaahinta maxalliga ah ee Addis Ababa. warar kale oo cusub ayaa sheegaya in madaafiic iyo duqaymo ay iminka ka socdaan magaalada Mekele oo ah xaruntii dhexe ee maamul goboleedka Tigreega, iyadoo saldhigga maamulkaasi ee magaalada ku yaala 4 gantaal lagu dhuftay. wararku waxa kale oo ay sheegayaan in dhismaha jaamacadda Mekele University meel aad ugu dhow oo ay ku shirayeen qaar ka mid ah madaxda Tigreega laga garaacay, balse weli ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijin kara waxa halkaasi ka dhacay oo sugan. ugu dambeynna magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxaa maanta ka furmaya sida la filayo wadahadallo u dhexeeya dowladda Ethiopia maamulka TPLF, sida uu warbaahinta u sheegay mas'uul ka tirsan xukuumadda Uganda. wadahadalkan ayaa waxaa garwadeyn ka ah madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, waxa ayna ujeedadu tahay in lagu soo afjaro dagaalka muddada 2 toddobaad ka socda Tigreega ee waqooyiga Ethiopia. dhinaca Addis Ababa ayaa waxaa wadahadallada ku matali doona ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia, halka maamul goboleedka Tigreega ay uga qayb geli doonaan erga ay soo dirsadaan. wadahadalkan oo hadafkoodu yahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan Ethiopia ayaa rajo badani laga qabin in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan, maadaama labada dhinac ay kala joogaan mowqifyo ay aad u adag tahay in la isu garaabo. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. inta aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonnimo.